السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمة بدن كسود وهذا مركلية مقال كله معنتي وحن إذن لودا جدونا توجو أما دنبيليال سمية فلال دخلني معه تأسو كلفتي إن قعدت لجو صادقه وحرجيني يا إنه مقال كان كعجب قرين دونا وحنصوح لي إلا يسديد دنبيليال أو سمية فعل دخلني معه هدي أجالستان مقال كان وحنسكدي دونا إن كسر سمية قبل بعض إن شاء الله. intaanan muuqaalka u guda galin maantay waxaan ka codsanayaa inaad kanalka subscribe saarto muuqaalkana like garayso si aan u gaarno hadafka iyo hamiga aan ka leenahay kanalkan. sidoo kale wixii fikriye faalaha iyo dhiirigelinba inoo wadaag qaybta hoose ee comments-ka. aan u guda galno muuqaalkeena adna diyaarso koobkaaga shaaxa si aad ugu raaxaysato muuqaalkan. haddii aan ku bilaabo dhacdada koowaad ama tuuga koowaad. maalin maalmaha ka mid ah lamaane howlgab ah oo ku maqnaa fasax iyo dalxiis ayaa ku soo laabtay gurigooda sanadkii markuu ahaa 2014 kadibna waxay la kulmeen tuug si raaxo leh u hurda sariirtooda maba ka qasna tuugee. labadii lamaane ayaa aad u la yaabay hurdada tuugan kaliya intaasi maahan waxay arkeen alaabtii guriga saxamadii cuntada oo la nadiifiyay iyo sidoo kale dharkoodii oo u dhaqay waaba nin dadaalaya. kadibna waxay u waceen booliska sidaas ayaana lagu xiray. tuugii oo la wareystay ayaa ku andacooday in labadan lamaane aysan ahayn kuwa nadaafada ku wanaagsan. waaba tuug wanaagsan hadduu gartay inuu guriga u hagaajiyo. sidoo kale waxa uu gubay digsi duug ahaa siday sheegeen lamaanaha guriga lahaa. ugu dambeyn tuugii ayaa qirtay tuugnimadiisa waxaana lagu xukumay 200 pound. iyagana waa ibtile ma iska sii daayaan miskiinka hadduu guriga u nadiifiyay. dhacdadan ayaa noqotay mid aad loola yaabo xitaa booliskii ayay ku noqotay tacajub. tuugan haddii uu xadi lahaa wixii uu guriga ka rabay uu iska bixi lahaa lama soo qabteen balse isaga ayaa la yaabay nadaafad darada guriga ka jirto alaabta oo isku dhexdaadsan iyo dhar aanan dhaqnayn. sidaa awgeed ayuu isku dayay inuu caawiyo dadkii ka maqnaa guriga. waaba talo wanaagsane ha ka bixin gurigaaga oo nadiif ah si aad uga badbaado tuugada. tuugii soo gal gurigaagana si uu ooga yaabo nadaafad darada ka muuqato gurigaaga sida lamaanahan oo kale. waxaa nambarka labaad inoogu jira Mark Yearwood oo deganaa Florida ayaa lala xiriirinayay inuu qayb ka ahaa weerar la geystay 2016. booliska ayaa bartooda Facebook soo geliyay sawirka ninkan oo wanted ay ku qoran tahay si ay bulshada u wargeliso haddii ay arkaan ninkan. balse arinta la yaabka leh ayaa ah in Mark Yearwood oo ahaa tuugii baadigoobka loogu jiray uu la degay sawirkiisii ee booliska barahooda bulshada ay soo dhigeen. waxaaba la qurux badnaaday sawirkiisa ee booliska meelaha wareejinayaan. kadibna waxa uu saartay profile-ka Facebook-kiisa. waxaa faale ama si comment ka bixiyay saaxiibkiisa isagoo la yaaban waxa uu sameynayo balse tuugii ayaa ugu jawaabay mahadsanid saaxiib. booliska ayaa iyagoona u dhibtoon gacanta ku soo dhigay dambiilihii iyagoo isticmaalaya bartiisa Facebook. kadibna waxaa ka sii daray booliska oo iyana bartooda Facebook ku soo qoray. Facebook waa bar bulsho oo aad u wanaagsan waxayna isku xirtaa saaxiibadii hore sidoo kale familada. waxayna raaciyeen hadalkooda haddii aad tahay wanted oo booliska ku raadinayaan kuma wanaagsana mana ahan fikrad wanaagsan inaad saarato profile-ka sawirkii lagugu raadinayay si lagu helo. waxaan filayaa doqonnimada inaysan ku ekayn kaliya dambiilaha oo sidoo kale booliskana aysan ka yaraysan maadaama ay ku dhiirigelinayaan dambiilayaasha si loo qaban. waxaa nambarka 3 inoogu jira tuug Brazil u dhashay ayaa isku dayay inuu dhaco cunto kariye wuxuuna ka qaatay wixii uu haystay. laakiin arinta doqonnimada ah uu sameeyay ayaa ah intii uu sii socday ayuu arkay saacad uu ka soo dhacay ninkii oo aan shaqaynayn. intuu soo majiiray ayuu u soo laabtay ninkii si uu siiyo saacadiisa maadaama aysan shaqaynayn isagana ay faa'iido lahayn. kadibna wuu siiyay uuna isaga soo laabtay. ninkii la dhacay ayaa wuxuu u yeeray booliska balse tuugii ma uusan fogaan oo wuxuu bagalay garoon kubad lagu ciyaaro oo meesha ka agdhawaa. waxaana halkii ugu yimid booliska waxaana loo taxaabay jeelka. dhacdada afraad United Kingdom tuug ayaa isku dayay in uu jabsado guri uuna sameeyay wuxuuna ka xaday alaab. arinta doqonnimada ah uu sameeyay ayaa ah inuu gurigii uga tagay telefoonkiisa. kaaga sii daran shaashada telefoonka waxa u saaran sawirkiisa. wuxuuna isku dayay inuu ku andacoodo inuu telefoonka ka lumay laakiin ugu dambeyn way ku cadaatay dambigii uu galay waxaana lagu xukumay kaliya 160 saacadood oo adeeg bulsho ah. dhacdada shanaad
fikradda tuugnimada ah ee dhicida bangiyada ayaa dunida aad ugu soo badanaysay. Markanna waa nin 40 jir ah oo isku daygiisu ahaa inuu dhaco bangi. Wuxuu gudaha u soo galay bangiga, wuxuuna u yimid qasnajigii bangiga. Wuxuuna u dhiibay warqad ay hanjabaad ku qorneed eray ay ka mid yihiin degdeg u jooji, adigoo aamusan lacagta isii ama si waa ku tooganaya, iyo ereyo la mid ah. qasnajigii bangiga waxa uu ku qasbanaaday inuu lacagta siiyo, wuxuuna u soo bixiyay lacag dhan $400. kadibna tuugii waa uu baxsaday, laakiin tuugan ma uusan ku baraarugsanayn inuu warqadda uu hanjabaada ku soo qoray ay tahay warqaddii mushaar bixintiisa qayb ka mid ah. ugu dambayn, dambi baarayaasha waxa ay heleen nuskii kale ama qaybtii kale ee warqadda meel ka baxsan bangiga. waxaa sidaas lagu ogaaday magaciisa iyo ciwaankii gurigiisa, gacanta ayaana lagu soo dhigay. dhacdada lixaad ama dambiilaha lixaad. dambiile lagu magacaabo Donald ayaa sameeyay dhacdo cajiib ah, isagoo sawirkiisa u diray booliiska. wuxuuna ku qoray, sawirkan ayaa ka fiican kii hore oo u ekaa cabsi. wuxuuna sheegay in sawirka ay booliiska soo bandhigeen uu yahay mid foolxun. wuxuuna yidhi, waxay soo bandhigeen sawir iga dhigaya inaan ahay qof foolxun ama James Brown oo baxsad ah, saasna mihi, ayuu hadalkiisa raaciyay. waaxda booliiska ee Lema ayaa ugu jawaabtay, waan uga mahadcelinaynaa inuuna caawiyay, laakiin sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelin lahayn hadduu noo imaan lahaa aan wada hadli lahayn. ugu dambayn, ninkii waxaa lagu xiray Florida. dhacdada toddobaad. dhacdadan waxay ka dhacday dalka South Africa. maahan waa cusub, dhicida baabuurta ama jabsashada baabuurta ku baakiman goobaha qaaska ah ee la dhigto gawaarida. ninkan wuxuu isku dayay inuu jabsado gaariga, laakiin dadaal dheer kadib nasiib xumo waxaa ku dhagay gaarigii. sida ay xaqiijisay warbaahinta The Star, ninkan ayaa 1 saac iyo bar codsanayay in la caawiyo si looga saaro gaariga, laakiin dadkii jidka marayay ayaa ku maadaystay, waxayna jawaab oga dhigeen qosol iyo dhool cadayn halkii uu isaga ka sugayay caawimaad. sidoo kale jariirada The Star ayaa sheegtay in markii ay timid milkiilihii baabuurka ee iyadana jawaab oga dhigtay, maxaad ka dhex samaynaysaa baabuurkayga? tuugii ayaa ugu dambayn isagoo rafaaday oo ay ka taagan tahay meeshii ka saara, waxa uu yimid booliiskii, waxayna u kaxeeyeen xabsiga. dhacdada sideedaad. wuxuu geystay faldambiyad dhac ah. hadduu intaas ku ekaan lahaa ayaa wanaagsanaan lahayd malaha. wuxuu Facebookiisa soo dhigay sawirkiisa isagoo sita mindi, wuxuuna ku soo qoray dhuubin Tesco off ah, calashaan Tesco waan u dhameeyay. booliiska ayaa 15 daqiiqo kadib isaga iyo mindidii uu watay iyo sidoo kale £410 uu ka dhacay Tesco la soo qabtay, waxaana lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah. dhibkaas waxa uu geystay faankiisa, bal ka waran hadduu aamusi lahaa, waxaan filayaa inay adkaan lahayd in gacanta lagu soo dhigo. ugu dambayn, saaxiibayaal, waxaan jeclaystay inaan halkan ku soo koobo muuqaalkeena. haddii aad jeclaystay muuqaalada noocan oo kale ah, qaybta hoose commentiska inagula wadaag, muuqaalkana like saar, waqti baa galay sidoo kale nagu soo biir kanaalka, subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad u rukumato kanaalkan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.